بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسنا قيارتا نلا سقطا مeel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada taxanaha labaad ee caawa waa 3 bisha September sanadka 2025 qodobada aan idin hayana waxa kamid ah hay'adda sirdoonka gudaha ee Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in wasiirka amniga gudaha ee nidaamkaasi Idmar bin Gafir uu ku badbaaday faraacid dile kadib markii kooxda hubaysan wax iska caabinta Falastiiniga ay weerareen isla markaana laga hortagay qorshe la doonayo in lagu qaarajiyo markii shanaad ayuu ka badbaadaya qorshe loo diyaariyay laakiin waxay kooxdu wacad ku mareen in ay maalin gacanta ku dhigi doonaan arrintan ayaa walaac weyn ku abuurtay qaar kamid ah wasiirada Israa'iil ee mayalka adag ee sida weyn uga soo horjeeda shacabka Falastiiniyiinta inay ku sugnaadaan gurigooda dhinaca kale bin Gafir quddiisa war ayuu soo saaray oo arrintan uga hadlayo kooxda hubaysan ee Falastiiniyiinta ee lagu magacaabo Xamaasna waxa ay goor dhaweyd ku dhawaaqeen bilaabitaanka howlgal cusub oo dagaal ay ugu magac dareen ushii Nabi Muuse taas oo ay kaga soo horjeedaan gulufka dagaalka in ka badan 45,000 oo askari oo Benjamin Netanyahu ku soo weeraray gudaha dhulka Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza haddaba weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay halka loo yaqaan Saytuun ayaa waxay ahayd mid mucjiso ah iyadoo mid kamid ah gaadiidka hubaysan iyo dabaabaadka Israa'iilna halkaasi lagu gubay askar ka tirsan ciidamada nidaamka ayaa qudhooda si dirqi ah ku badbaaday kadib markii ay damceen in Falastiiniyiintu ay gacanta ku dhigaan xaaladda magaalada ayaa aad u sii cuslaatay xilli dagaalkana iminka uu muuqanayo inuu yahay mid aad u ballaaran dhinacyadu waxay isweydaarsanayaan arrimo la xiriira hanjabaadyo culus oo ka kala imaanaya garabyada kala duwan dagaalka ka soconaya magaaladaasi oo ay Falastiiniyiintu wadaan kaalin intee le'eg ayay ku leedahay dawladda uu hogaamiyo Rajab Tayyip Erdogan warbixinayaan arrintaasi sidoo kale ku faaqidi doona akhyaarta ay nala socotay dawladda Shiinahana waxay goor dhow daboolka ka qaaday hub ashqaraar leh taas oo dunida ka yaabisay madaxyo kala duwan iyo waliba oo nuclear ah iyo gantaalo gaaraya in ka badan 20,000 oo kilomitir ayay maanta soo bandhigeen taas oo ay ku tilmaameen ciiddii Shiinaha isku dayda in ay kula gorgortanto awood in ay tallaabooyin adag la kulmi karayso haddaba qorshaha Shiinaha waxyaabaha uu soo bandhigay madaxyada nuclearka gantaalaha ridada dheer iyo waliba hubka laysarka oo ah kan ugu awoodda badan adduunka oo ay hadda gacanta ku hayaan ayaan barnaamijka ku eegi doonaa akhyaaray soo dhawaada waxaan ahay Cabdicasiis Barrow waxaad daawanaysaan muuqaalka labaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Show fadlan si aad macluumaad iyo warar dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara haddii dhinaca Facebook aad nagala socotaanna follow ina soo dheh haddii aad horey noola joogteenna saaxiibadeen la wadaaga muuqaalka aad baad u mahadsantiin hay'adda sirdoonka amuraha gudaha Israa'iil oo Shabak lagu magacaabo ama Shinpin ayaa waxa ay caawa ku dhawaaqday in uu faraacid dile ku badbaaday wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee nidaamkaasi Idmar bin Gafir sida hay'addu sheegtay afayeen u hadlay waxa uu yiri ilaa iyo 5 qof ayaa laga soo xiray halka loo yaqaan Al-Khaliil oo ku taala daanta galbeed kadib markii ay qorsheynayeen weerar la doonayo ninkaasi in lagu qaarajiyo kooxdu waxa laga hagayay gudaha wadanka Turkiga sida ay ku dhawaaqeen nidaamkaasi kadibna waxa ay heleen dhowr diyaaradood oo drones ah oo ay damacsanayeen inay qaraxyo ku soo xiraan isla markaana ay doonayeen in ay ku qarxiyaan bin Gafir isagoo la hadlay raadiyaha kaane Israa'iil wasiirka amniga gudaha ee nidaamkaasi waxa uu yiri markii shanaad ayaan faraacid dile ku badbaaday waxa la ii beegsanayo oo la ii takooraya keligay waa inaan ka duwanahay wasiirada kale ee nidaamka waxaan ahay nin mowqifkiisa uu adag yahay aragtiyihiisu ay cad yihiin dhulkaana jecel in Israa'iiliyiintu ay gacanta ku hayaan sidaa daraadeed tallaabooyinka aan qaadayo ee ka dhana maxaabiista la hayo iyo waliba dhaqdhaqaaqyada wax iska caabinta aan kaga soo horjeedo ma cabsi gelinayaan inaan naftayda waayo ayuu yiri isagoo raadiyaha kaane Israa'iil la hadlayay bin Gafir
waxa uu ka mid yahay wasiirada ugu mayalka adag nidaamka hadda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu isaga iyo wasiirka maaliyadda ee Smotrich lagu magacaabo dhowr jeer oo hore ayuu ninkan waxa uu ku xadgudbay masjidka Al-Aqsa isagoo askar fara badan watay isla markaana gudaha masaajidkaasi galay dawlado fara badan oo adduunka ah ayaa si weyn u cambaareeyay tillaabooyinka uu qaadayay hase ahaatee hadda waxay muuqanayaan ama muujinayaan tillaabooyinkan inay yihiin kuwa isxigxiga oo la doonaya in lagu beegsado 2024 ayaa ninkan iyo qoyskiisa lagala cararay guriga ay ku noolaayeen kadib markii ilaaladu ay ka war heleen diyaarad doonaysa oo dhowr jeer hawada gurigaasi soo gashay waxaana si degdeg ah loo wacay hay-adda nabad sugidda ee gudaha ka shaqaysa kadibna isaga iyo qoyskiisii ayaa lala baxsaday oo la raadiyay meelo gabaad leh kooxda wax iska caabinta gobonnimo doonka Falastiiniyiinta ee Islaamiga ayaa ku dhawaaqaysa in ay doonayaan in maalin uun han noqotee ninkaasi gacanta lagu soo dhigayo isla markaana ay ka waraabin doonaan wixii uu hore u geystay sida kooxdu ay ku doodeen isla wararka Falastiiniyiinta haddii aan sii eego kooxda wax iska caabinta Falastiiniga ayaa ku dhawaaqay in ay doonayaan bilaabitaanka amaba bilaabay baa la leeyahay weerarka ay ugu magacdareen ushii Nabi Muuse taas oo noqotay weerar xoog leh oo hadda ka dhacaya qaybo ka mid ah magaalada Gaza isla markaana looga soo horjeedo nidaamka Israa'iil xaafadda Saytuun ayaa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah ciidamada Israa'iil gawaaridooda gaashaaman lagu gubay isla markaana dhowr ka mid ah askartu ay ku badbaadeen faraaci dile afayeen cusub oo u hadlay garabka militariga ee kooxda maadaama Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay dileen ninkii kooxdaasi afayeenka u ahaa ayaa u sheegay wariyaasha iyo warbaahinta dagaalka in ay howlgalkani noqonayo mid looga soo horjeedo Gideon Laba oo ah weerarkan magaca ay u qaateen Israa'iil wuxuu yiri labada dhinac marka la fiiriyo innaga ayaa ku awood badinayna waxaana noqon doonaa kuwa dhulkooda ku dagaalama waxaan diyaarinaa howlgallo culus maalmaha soo socda waxaa dhici doona cashiro la yaab leh dagaaladuna waxay noqon doonaan kuwa adag dhinacyada ayaa maanta isku helay xaafadda Saytuun rasaas foolka fool ah ayay dhinacyadan isweydaarsadeen waxaana lagu soo warramayaa in ka badan 80 qof in maanta oo kaliya lagu dilay magaaladaasi sida wararku ay tilmaamayaan Israa'iil waxay la kulmaysaa weerar adag oo ku aadan arrimaha dagaalka iyo waliba sida hadda colaadda halkaasi ka taagan ay u sii laba laxaadsan lahayd nidaamka uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in ay doonayaan in guud ahaanba magaaladaasi gacanta ay ku dhigaan isla markaana kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta ah guud ahaanba hubka laga qaado dayax gacmeed lagu sawiray halka nuclearka Israa'iil oo yaalo ee Dimona la yiraahdo ayaa lagu soo warramayaa inuu ka socdo dhaqdhaqaaq xoogan xilli carabta aan loo ogolayn in ay samaystaan hal madax oo nuclear talaabadan ayaa waxa la leeyahay waxa ay muujinaysaa in halkaasi uu ka soconayo dhaqdhaqaaq la doonayo in warshadaha nuclearka ee Dimona yaala lagu ballaariyo Israa'iil dhinaca kale waxa la xaqiijiyay inay gacanta ku haysato madaxyo nuclear ah sida wararku ay tilmaamayaan warbixin uu qoray telefishinka Al Jazeera waxa uu leeyahay waxa si rasmi ah loo shaaciyay sawirro ay qaadeen dayax gacmeedyo u gaara shirkadda Plant Labs oo ay muujiyeen ballaarin weyn ama ay muujinayaan baaliiro howlgal weyn oo ka soconaya xarunta Shimon Peres oo cilmi baarista nuclearka ah oo ku taala deegaanka Dimona ee koonfurta Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta laga haysto haddaba maxay tahay dhaqdhaqaaqa ama muxuu yahay dhaqdhaqaaqa halkan ka soconaya khubarada baaray sawiradan waxa ay sheegayaan inay suuragal tahay dhismo cusub in halkani uu ka socdo mashiinada qaar iyo makiinadaha ayaa hadda la bedelayaa qaarkood kuwaasi oo soo saaray baa la yiri platinum maada muhiim u ah hubka nuclearka qaar kale waxa ay tilmaamayaan in wali go'aan rasmi ah aan laga kaarin sababtoo ah dhismaha wali waa mid dhulka hoostiisa ku jira oo aan si rasmi ah loo dhammaystirin haddaba dhismaha mashiinadan cusub iyo beddelkeeda maxay soo kordhinayaan makiinadaha yaala Dimona oo hadda
jira baa layidhi waqti dheer waxaa la dhisay 1960kii waxaana la rumaysan yahay inay soo saareen in ka badan 90 madax oo hubka nuclear-ka ah sida lagu sheegay warbixin ay qortay hay-adda lagu magacaabo Nuclear Bulletin. haddaba dhismaha cusub waxaa loo arkaa mid lagu bedelayo ama lagu casriyeynayo mashiinadii hore halkan u shaqaynayay. Israa'iil waxay ka mid tahay wadamada aan wali gelin heshiiska caalamiga ah ee NPT la yiraahdo ee xakamaynta iyo faafinta hubka nuclear-ka. dhinaca kale hay-adda atomikada adduunka ee qaramada midoobay IAEA wali ma aysan ku qasbin Israa'iil in kormeer lagu sameeyo xarumaheeda nuclear-ka iyo wax soo saarka, taas oo muujinaysa hay-addan inay cadaadis ku hayso qaybo ka mid ah wadamada islaamka gaar ahaan dalka Iiraan. cambaareyn caalami ah iyo laba wajiilayn siyaasadeed ayay leedahay Al Jazeera waa ka muuqanaysaa barnaamijkan. dhismahan cusub waxa uu yimid kadib weeraro Israa'iil iyo Maraykanku ay ku qaadeen xarumihii saddexda ahaa ee Fordo, Isfahan iyo Natanzi oo dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ay lahayd bishii Juun sanadkii 2025. taasi waxay keentay cambaareyn Israa'iil lafteeda inay si qarsoodi ah u ballaarinayso awooddeeda nuclear-ka xilli ay la dagaalamayso wadamada kale ee gobolka ku yaala. ballaarinta xarunta Dimona waxa ay si weyn u muujinaysaa in Israa'iil ay sii wado kobcinta awooddeeda nuclear-ka iyadoo aan isla xisaabtan caalami ah samayn. waxay sidoo kale diiday kormeerayaashu in ay gudaha u galaan xaruntaasi maadaama ay ka mid tahay goobaha sida gaarka ah indhaha loogu hayay. dalka Shiinaha la yiraahdo maanta waxa uu soo bandhigay awood la yaab leh oo dunida aad uga yaabisay kadib gantaalo, diyaarado, madaxyo nuclear ah iyo hubka laserka. markii uu banaanka soo dhigay tallaabadani waxay noqotay mid ashqaraar leh oo wadamo fara badan ka yaabisay. wakaaladda wararka Reuters, wakaaladda AP iyo sidoo kale telefishinka Al Arabiya saddexduba waxay tilmaamayaan wixii maanta dhacay inay tahay fariin cad oo ku socota wadamada reer galbeedka, isla markaana la leeyahay awoodda halkani taalla ma aha mid loo babac dhigi karo. warbixintu waxay leedahay Shiinuhu waxa uu soo bandhigay bandhig military oo saameyn leh, hub casri ah oo lagu soo bandhigay Beijing. dalka Shiinaha waxyaabaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ah gantaalaha nuclear-ka ee loo yaqaan DF5C, gantaalaha balastiga ah oo awood badan leh isla markaana gaari karaya dunida oo dhan ilaa 20,000 oo kiiloomitirna soconaya. waxaa laga ridayaa baa layidhi ilaa 12 madax oo hubka nuclear-ka ah qaadan kara gantaaladaasi. waxaa loo arkaa tiirdhaxaadka istiraatiijiyada nuclear-ka ee Shiinaha. gantaalahan nidaamka difaaca hawada ee HQ-29 waxa uu noqday waxyaabaha kale ee Shiinaha maanta ay soo bandhigeen oo awooddeeda lala yaabay. gantaalaha difaaciyadan waxay awood u leeyihiin in xitaa ay soo ridaan dayax-gacmeedyada hawada ee dul meeraya samada sare ee waddanka Shiinaha haddii ay isku dayaan inay soo galaan. tani waxay muujinaysaa kartida Shiinaha ee dagaalka cirka iyo waliba bannaanada hawada sare, taas oo khubaradu ay leeyihiin wixii dhacayba waxay ahayd wax ashqaraar leh. hubka kale ee mucjisada ah ee Shiinaha maanta uu daboolka ka qaado waxaa ka mid ah laserka loo yaqaan LY1, taas oo dunidu ay aad ula yaabeen. hubkan laserka ah oo loo adeegsado difaaca hawada waxaa la sheegay inuu yahay kan ugu awoodda badan ee dalhaysta ee hadda Shiinaha gacantiisa ku jira. gantaalaha kale ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah gantaalka loo yaqaan Supersonic YT-15 iyo YT-20 oo ah laba gantaal oo ina yaab lahaa. gantaalahan oo aad u xawaaro badan, in ka badan 5 jeer xawaaraha codkooda, ayay aad uga dheereeyaan marka la fiiriyo. ujeedadu waxay tahay burburinta maraakiibta waaweyn ee dagaalka ayaa loo adeegsan doonaa haddii Shiinaha uu dagaal galo. maraakiibta iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-iskana waxay ahaayeen kuwii Shiinaha maanta uu dunida uga ashqaraariyay ilaa 26 ka mid ah madaxda adduunka ayaana daawanayay. waxaa ka mid ahaa dalka Ruushka hogaamiyahooda Vladimir Putin, dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo waliba madaxweynayaal kale uu ka mid yahay Erdogan.
waxaa la soo bandhigay diyaaradaha iyo maraakiibta ciidanka ay ciidan wadin sida kan loo yaqaano HSU 100 doon miinooyin geyn karta meelo fogfog iyadoo aan cidi saarnayn. waxaa sidoo kale Shiinuhu maanta soo bandhigay markii dunidu ay aad u ashqaraartay AJX002 oo u muuqda baa la yiri in loo adeegsan karo baa la yiri xog ururin taas oo diyaaradaha droniska ay qayb ka yihiin. diyaaradda la yiraahdo KG600 waxay ka mid ahayd waxa Shiinaha maanta dunida tusay. diyaaraddan casriga ah waxa la yiri waxa lagu rakabay raadeero waaweyn oo loogu talagalay adeegsiga hogaaminta ciidanka cirka ee ka howlgala hubinta baa la yiri maraakiibta dagaalka ee ku soo socota. haddaba hubkan Reuters waxay leedahay waa fariin weyn oo ku socota dawladda Mareykanka. waxa la isku hayaa Taiwan iyadoo waayadii ugu dambeysay Mareykanka oo hub xoogan u geynayay meelo kala duwan oo ka mid ah koonfurta qaaradda Aasiya. bandhigan waxa uu horkacaya baa la yiri madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping waxaana la rumaysan yahay in uu ahaa fariin muuqata oo Shiinaha uu ugu dirayo Mareykanka iyo xulafadiisa xilli xiisada gobolka Aasiya ay kor u sii kacayso. waxaa sidoo kale cad oo la dareemay iskaashiga siyaasadeed ee military ee ka dhaxeeya Shiinaha, Ruushka iyo Waqooyiga Kooriya kuwaas oo ka soo wada horjeeda saameynta Mareykanka uu leeyahay. arrimahan markay dhacayaan waxaa xalay bartiisa through social qoraal ku soo qoray Trump oo dhahaya waan idin garanay shirqoolkiina. maanta xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Pete Hegseth ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Pentagon-ka lagu amray waa Mareykanka waaxdiisa gaashaandhigga in waxa dhacaya ay si dhow la socdaan si Mareykanka oo hurdaana loo dagin. akhyaartana la socotay intaas ayaan caawa ku abiyaa qaybtan iyo qubanaha